maamulka dekedda Muqdisho iyo taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa maanta warbaahinta u soo bandhigay container sidii waxyaabaha maanka duuriya kaas oo halis ku ah badqabka bulshada iyo amniga caasimadda iyadoo talaabadan hore digniin adag uga soo saaray maareeyaha guud ee dekedda Muqdisho mudane Danjire Maxamed Cali Nuur Ameeriko waxaa sidoo kale gacanta lagu soo dhigay ganacsatadii containerkan daraagiska ah ka soo dejiyay dekedda magaalada Muqdisho iyadoo goobta lagu soo bandhigay containerkan maanduuriyaha sidii ay goobjoog ka ahaayeen maareeya ku-xigeenada dekedda Muqdisho Dr. Cali Xaaji Maxamed iyo Cabdullaahi Kaarshe taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo taliyaha saldhigga booliiska ee dekedda General Cabdullaahi Xasan Bariise oo ah taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa warbaahinta ugu warbixiyay howlgalka lagu soo qabtay containerkan sida aad aragtaan containerkan aad u jeediin oo muxuu ahay halkan yaala waxa ku jira kaniinigii muxuu ahay khatarta ahaa waa markii saddexaad markii afaraad oo la qabanayo oo muxuu ahay dawada noocaas muxuu ahay la qabtay la horgeeyay maxkamadda awoodda u leh talaab laga qaaday waxa ayaan darra ah ganacsatada aan mar walba muxuu ahay halkan looga digo la yiraahdo alaabtaan muxuu ahay alaab fiican maaha dhalinyaradii muxuu ahay mustaqbalka oo dhan ay baabi'isay waa shay darooga ah oo loo ogolayn inay muxuu ahay isticmaalkeedu uu xaaraan ka yahay dalka si kastoon uu sheegnay ilaa iyo hadda waa lagu waantoobi laaya waxaan rabaa maanta inaan iraahdo mar labaad mar afaraad mar shanaad intaasoo jeer ayaa muxuu ahay maxkamad la geynayay inaan la ogolayna waa la idiin sheegay inay waxaanu wax ka xaaraan yihiin inay muxuu ahay ka soo degaan dekedaheenoo dadkeena lagu fasahaadiyana waa idiin sheegnay haddana waa idinkugu celinaynaa lacagtiina ha gelina hana ku baabi'ina ubadkiina iyo muxuu ahay bulshada Soomaaliyeed mustaqbalka soo koraysa ha ku baabi'ina nin walba lacagtaada wax kale oo macna u leh dalka iyo dadka gasho halkii aad geli laheedo waxaad ku fasahaadinayso sidaa daraadeed waa maalkii muxuu ahay saan sheegnay intii horena maxkamadda awoodda u lahaa la horgeeyay haddana tanna muxuu ahay waa la qabtay haddaan meesha nimiday maxkamadda awood u lahaana la horgeynaa go'aanka ka soo baxana muxuu ahay insha Allahu tacaala markaasaan arki doonaa lagu camal falaa sidaas daraadeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ku celinayaa inaan lacagaha muxuu ahay la gelinayo waxyaabaha ummadda fasahaadina in loogu bedelo ummadda wax u galaya maareeya ku-xigeenka dekedda Muqdisho mudane Cabdullaahi Kaarshe ayaa tilmaamay in maamulka dekedda uu sharciga la tigsan doono ganacsatadii containerkan maanduuriyaha ka soo dejiyay dekedda caasimadda maanta waa maalin kale waxaan u joognaa arrin aan u fiicnayn dhagaha dadka Soomaaliyeed waxaan u joognaa soo bandhigista containerkan ay u jeedaan ay ku jiraan waxyaabaha maanka dooriya dhowr bilood ka hor ee markaan halkan ku soo bandhignay alaabahan oo kale digniino laga baxshay maxkamadihii iyo hay'adihii sharciga ku shaqada lahaa loo gudbiyay waxa ayaan daraa mar walba inay sii socoto dad magaca ganacsatada sheeganaya inay alaabtan keenayaan hay'adaha dawladda ee ku shaqada leh waa sharci ka soo saareen maamulka dekedda oo maareeyaha ugu horeeya digniina laga soo saaray waxaan rabnaa mar kale inaan uga digno ganacsatada alaabtan keenaysa in ay ka waantoobaan in ay waxyaabaha dadka caafimaadkooda iyo mustaqbalkooda wax u dhibaya ay keenaan wax badan oo ay ka ganacsan karaan oo ka irsaaqad fiican oo ka xalaal fiican ayaa jira waxaan rabnaa in marka koowaad Ilaahay uga cabsada dadka waxa ay u keenaysaan haddii ay dhici jirtay wax daroogooyin iyo wax aan maandooriyaha dalkan inta la soo geliyo iska gudba maanta wixii ka dambeeya horena waa u sheegnay kuwii horena waa la qabtay kuwaana waa kuwana maanta ma dhici doonto ciqaabtana waxay kala kulmi doonaan wixii sharcigu uu ogol yahay waxaan u gudbi doonaa maxkamadaha iyo xeerlaanta inta ku shaqada leh waxaan rabaa in ammaan gooni u jeediyo saldhigga booliiska dekedda ugu horeeya taliyaha Axmed Qadar iyo customka iyo hay'adda nabad sugidda qolo walba oo arrintan ku lahayd in la qabto
waxaan rabnaa inaan shaqada sii laba jibaarno wixii maanta ka dambeeyana inay waxaan uga digaynaa qoliyaha caadaystay in dhibaateynta ummadda iyo waxa ummadda caafimaadkooda iyo mustaqbalkooda wuxuu dhibaya keena inay ka waantoobaan loogama hari doono kambanigii iyo magacyadiisii iyo dadkii lahaana intaba magacyadooda waa gudbinay hay-adaha ku shaqada laha ayaana sharciga la tigso doona insha Allah mahadsantiin